Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dhammaan waan salaamayaa. Welcome back again. Aad iyo aad ay farxad igu tahay inaan mar kale ka soo muuqdo. Anigu rabo inaan inla wadaago muuqaal aad iyo aad u xiiso badan. Haddaba maanta muuqaalkaani waxaan rabaa inaan kuu soo bandhigo tilmaamo oo qofku uu adeegsan karo. Tilmaamahaas oo qofku markuu uu rabo inuu soo bandhigo waqtiyaadka uu cabsi uu dareemayo. Haddaba siyaabooyinka qofkaasi uu jumlooyin u sameyn karo oo wuxuu tilmaamsan karo asigoo luqadda adeegsan karo iyo sidoo kale haddii uu qofkaasi maartay loo soo bandhigo tilmaamahaasi ama qof uu yiraahdo waan cabsanayaa siyaabooyinka qofkaasi uu ugu jawaabi karo sida in uu yiraahdo amal ha cabsanin ama wax saa u sii weyn ma lahan ama isdajiyo kale soo tilmaamahaas oo dhan ayaan maanta aan meeshan aan ku arki doonaa okay aan isla socon insha Allah. Okay, good. Maanta ciwaankeenu wuxuu ku saabsan yahay fear and anxiety in English. Fear and anxiety in English. And fear waa cabsi. Anxiety-na waxaa la yiraahdaa waa cabsi tiro badan, okay? Cabsida markay xad dhaaf ay tahay oo aad ay u ziyaado ay tahay ayaa waxaa la yiraahdaa anxiety. Sidaas ayaa ugu dhawaaqaysa. Good. So tilmaamaha qofku uu adeegsan karo waqtiyaadka uu soo bandhigayo cabsidaasi waxaa ka mid ah in uu qofku uu yiraahdo are you afraid of the dark? Are you afraid of the dark? Adigu ma ka baqaysaa mugdiga ma ka baqdaa? Are you afraid of the dark? So qof hadduu ku dhaho adigu ma ka baqdaa mugdiga then u jawaabaysaa no or yes, okay? Waqtiyaasi maartay markaasi waxa aad xaaladda ku sugan tahay ayaa ugu jawaabaysaa good. Tilmaamta xigta waxay leedahay I'm afraid of being alone at night. Aniga waan baqaa in aan noqdo keli waqtiyaadka habeenka ah. Habeenka in aniga aan keli noqdo aad baan u baqaa oo yani ma jecli kelinimada ma jecli. I'm afraid of being alone at night. Good. Tilmaamta xigta waxay leedahay I'm scared of snakes. I'm scared of snakes. So afraid sidoo kale waa baqdin, right? Fear, anxiety, waxaas oo dhan kulli waa erayo baqdinta loo adeegsado. I'm scared of snakes. Scared sidoo kale waa cabsi. Aniga waan ka cabsadaa masaska waan ka cabsadaa, okay? So qofkaas saas ayuu tilmaamtaasi u adeegsan karaa asagoo soo bandhigaya cabsidaasi. I'm scared of snakes. Aniga masaska waan ka baqaa. Tilmaamta waxay leedahay I'm frightened of spiders. I'm frightened of spiders. Anigu waan ka baqaa caarada waan ka baqaa. So sidoo kale frightened waa erey la micno ah cabsida, okay? That's good. waa cabsi ziyaada ah sidoo kale frightened. Anxiety la micno ah waa cabsi ziyaada ah. I'm terrified. I'm terrified. Aniga waan baqayaa, okay? Sidoo kale waa cabsi zaid ah. Aytigeeda aniga waan baqayaa. That's good. Tilmaamta waxay leedahay I get scared very easily. I get scared very easily. Aniga si fudud ayaa la iga nixin karaa, okay? I get scared very easily. Aniga si fudud ayaa la iga nixin karaa. That's good. Tilmaamta xigta waxay leedahay I was terrified when I heard the noise outside. Aniga aad ayaan u baqay marka aan maqlay qaylada yani jibada ka jirto banaanka qaylada ka jirto marka aan maqlay aad ayaan u baqay. Okay, haddaba qofkaas saas ayuu tilmaamtaas u adeegsan karaa. That's good. Tilmaamta xigta waxay leedahay I'm worried about her health. Aniga waxaan ka walwalayaa caafimaadkeeda ayada caafimaadkeeda. I'm worried about her health. Aytigeeda aniga aad ayaan uga walwalayaa caafimaadkeeda. So intaas oo dhan qofku waa qaababka uu u adeegsan karo si uu u soo bandhigo maartay hadduu cabsi uu dareemayo. So kuwaasi kuwa ka mid ah ayuu maartay qofku u adeegsan karaa. Ma ahan dhammaan inuu wada xifdiyo kaliya waxa waa sida uu jumlada uu u sameyn karo waqtiyaadka uu rabo inuu soo bandhigo cabsida uu soo bandhigo. Haddaba maxay noqon karaan marka jawaabihi maxay noqon karaan maartay tilmaamaha jawaabahooda maxay noqon karaan. Hadduu qofku yiraahdo waan cabsanayaa maxaad ugu jawaabi kartaa? Waxaad dhigi kartaa okay jawaabaha waxaa la yiraahdaa useful responses. Useful responses. Okay? Jawaabaha wanaagsan, okay? Ya waxaa ka mid ah qofku in aad tiraahdo don't be afraid. Waxba ha baqin. Don't be afraid. Waxba ha baqin. Waxaa kaloo dhigi kartaa adigoo qofka dhahay ha cabsan waxaad dhigi kartaa it is not a big deal. Wax saas u weyn ma ahan. Hadduu qofku ku dhaho I'm scared of snakes. Aniga masaskan ka baqaa waxaa ugu jawaabi kartaa dhigi kartaa it is not a big deal. Wax saas u sii weyn
ma ahan yani ha cabsanin waa it is nothing saas waa dhigi kartaa yaa waxba ma lahan okay it is nothing qof wuxuu ku dhahay caaradan ka baqa it is nothing wax saas ma jiraan okay yaa saas waa dhigi kartaa waxaa kaloo dhigi kartaa there is nothing to be afraid of there is nothing to be afraid of wax laga baqo ma jiraan there is nothing to be afraid of saas waa dhigi kartaa wax laga baqo ma jiraan okay saas ayaa qofka ugu jawaabi kartaa waxaa kaloo dhigi kartaa inaad tiraahdo take it easy okay yeah take it easy yani wax saas ha ka soo qaadin okay yeah wax saas ha ka soo qaadin oo basiit waay okay yeah waxaa dhigi kartaa calm down isdeji okay yeah calm down isdeji okay yani waxba ha baqin aytigeeda yeah calm down waxba ha baqin oo isdeji aytigeeda so sidaas ayaa qofkii aad ugu jawaabi kartaa haddii uu ku soo bandhigo tilmaamo asagoo yani shucuurtiisa ka warramayo waqtiyaadka uu dareemayo cabsi ayuu waqtiyaadka cabsi uu dareemaya so that's why marka ay aad iyo aad u wanaagsan tahay qofku inuu barto maartay tilmaamaha qofku uu adeegsan karo asagoo jumlo sameynayo waqtiga uu maartay uu rabo inuu soo bandhigo wixii uurkiisa ku jiro haddii uu ku sugan yahay xaalad maartay cabsi hadduu ku sugan yahay so that's why we say fear and anxiety okay cabsida iyo cabsida dheeraadka ah marka aad rabto inaad soo bandhigto adigoo luqadda ingiriisiga adeegsanaya so insha Allah waxaan rajeynayaa tilmaamahaasi aad fahanteen iyo jawaabahooda waxaan rajeynayaa marka insha Allah inaad isku xirkaasi aad sameyn doontaan si ay idinkugu fudaato ku hadalka luqadda ingiriisiga maanta iyo maalinta xigta intaan ka kulmi doono khayr tiro badan ayaan ku ogaay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh